السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعنا ونكسن أصحابي ومركلة يكلان كنال كيني فهمتج ما أنت وحا أينو قادنا هبك أينو أدوبي لهن شاشة كمبيوتر كين إنه استعمالنا برنامج كله يقان camtasia studio 8 إن هذا برنامج camtasia studio 8 إن وبرنامج بلاران ولو إديت كرين فيديوغا إن كاس أو فيديوغا وفي عنا لو duubo shashada compiterka in hadaba barnaamijkan waxa aad kala soo degaysaa internetka ayaad kala soo degaysaa in marka aad browserkaaga furto halka ugu sareysa waxa aad ku qoraysaa camtasia studio 8 camtasia studio 8 markaad ku qorto enter ayaad oranaysaa enter marka aad tiraahdo waxa aad ka dooranaysaa camtasia studio 8 download marka aad download ku dhufato linkiga marka aad ku dhufato waxa aad si toos ah download u oranaysaa halkan download marka aad tiraahdo calaamadan greenka ah kadib download ayaa hadana sii oranaysaa download marka aad tiraahdo wuxuu ku soo furay barnaamijka aad wax ku download gareynaysay softwareka wax ku download gareynaysay sida internet download managerka ama kii aad haysataba kadibna download ayaad hore kaga oranaysaa in anigu barnaamijka waan hayaa download oran maayo waan ka noqonayaa waxa aan si toos ah u gudageliyaa barnaamijkii aan haystay ee camtasia studio 8 camtasia studio 8 waa kan marka aad barnaamijka soo furto waxa aad sameynaysaa in aad saddex option oo yar horta ku soo saaraya optionka ugu horeeya waxa waa record on screen waa in aad record wax ku duubto shashada computerka wax kaga qaado wax ku duubto halkana waa importing media in aad fileski ku yaalay ama fiiliyada ku dhexyaala computerka inaad ku soo upload garayso halkana waa produce and share waa inaad fiiliyada aad ama edit garaysay ama aad screen ka qaaday in aad ku save garayso computerkaaga imaka tusaale ahaan marka aad video ku qaado produce ayaa oranaysaa kadibna computerku si toos ah u gelaya videogaas markaas halkii aad doonto ayaad ku share garanaysaa haddaba barnaamijkan waa barnaamijkii koowaad qaybtii koowaad weeyaan ka duubno camtasia haddaba in interface-ka ugu horeeya waxa weyn in aynu wax duubno kadibna aynu produce gareyno markaas waxaan oranayaa youtube screenka youtube ayaan ku oran shashada computerka kadibna race ayaan ku dhufanayaa okay ayaan oranayaa kadibna wuxuu ii tirinayaa 1 2 3 ayuu tirinayaa kadibna imika wuu inoo duubayaa saa aragtaanba wuu inoo duubayaa waa kaas imika halka wuu inoo wadaa markaad doonayso fiilin inaad istaajiso stop ayuun baad oranaysaa ama pause siyartaag ama delete waa iskaba saaraysaa markaas inuu fiilin marka xooga intaad doonayso aad duubto ee aad dhamayso waxaad ku sharaxaysay stop ayuun baad oranaysaa soo marka aad tiraahdo waa kan kuu soo baxay fiilowga kuu soo baxay marka kuu soo baxay fiilowgii save ayaad ku oranaysaa ama delete baad ku oranaysaa save ayaan ku oranayaa marka kadibna waxaan sameynaya meeshaan ku save gareynaya inaan doorto kadibna aan magac ka bedelo magac aan ula baxo baan ula baxayaa kadibna save ayaan oranayaa markana wuxuu kuu soo kicinayaa barnaamijkii weynaa ee camtasia homekii ayuu ku keenayaa kadibna halkan ayaad si toos ah video ugu edit gareynaysaa si toos ah ayaad ugu edit gareynaysaa maadaama horta yahay casharkii koowaad ee camtasia ka sameyno waxa weeyaan interface-ka hore waxaan ku qaadanaa inay video duubno aynu maxay produce gareyno markaas wixii ka dambeeyay insha Allah editka weyn ayaan gudagalnaa casharo badan bay ka sameyn doonaa insha Allah markaas video soo jeeso timeline ka soo dhigaysaa marka timeline ka soo dhigto waxaad sameynaysaa in aad video kale hadana aad soo geliso hadda doonto ku edit garayso kadib waxaad halkan call logs ka doonaysaa kadibna halkan arrow-yadan calaamadahan tilmaamaya kolba video halka marayo wax lagu tusaalaha ayaad qaadanaysaa qaar kamid ah ama kuwan aad qaadanaysaa kadib halkan ku imanaya kadib waxa qoraal ayaad ku qoraysaa qoraal ayaad ku qoraysaa kadibna
sidaska inta dadada leekaysanaysaa kadib waxaa samaysa inaad text doorataad wax ku dul qorto deetan waxbaad ku dul qoraysaa iminka waxaan ku qorayaa oo kale fahamtaj oo kale marka aan ku qoro meel banaan ayaan kala ku dhufanay kadibna qoraalka waa kan halkan u dhex kale intaa doonta ay leekaysin kartaa markaas waa wadweynin kartaa waa yaran kartaa intaa marka soo dhaafno mid kale waa soo dooran kartaa xaraan kale aad dhigi kartaa iyadan waxaa doonta aad ku qori kartaa intaad tan ka baabiso iyada waxaa doonta ku qori kartaa subscribe oo kale aad ku qoraysaa kadibna meel banaan aad ku dhufanaysaa markaasoo kaa qoraalka ku soo qori waad yareyn kartaa inta ma leekaysiin waad yareyn kartaa intaad leekayso ayaad qoraal yaroo habboonna ku qoraysaa kadibna waxaa ahaato halkan aad dhigaysaa kadib inta markaas soo dooran kartaa kale transition oo kale ama halkan oo kale transition oo kale waxaan waad dooran kartaa markaas sidaas ayaa lagu duubaa wax badan baad ka bedeli kartaa dabcan barnaamijkan waa barnaamij ballaaran haddaynu caawa na sharaxno aynu ilaa berito na sharaxno kama dhammaanayno horta barnaamijkan markaas tusaale ahaan bay ku bixinaa kadib waxaa samaynaysa inaad videogii iminka haddaan reviews idiyaro tuso waa kaas aan idiyaro tuso oo aragtaan markaas videogaas kadibna produce aan odhanaya marka intaad produce kadib halkan waxaad kasoo dooran video quality-giisa video quality-ga waxa ugu fiican mp4 ayaa ugu fiican 1080 markaas taasaan ku dhufanaya kadib next ayaan odhanaya kadib titleka magac ayaan ula bixinaya magac ayaan la baxaya kadibna halkana meeshaad ku save garan lahayd ayaad ka dooranaysaa kadibna next finish ayaa odhanaysaa wuxuu inoo bilaabaya inoo duubo maxay ahayto inoo produce garo videogeeni uu computerka inoo dhex geliyo markaas meeshaa doonto ayaad geen kartaa videoga youtube-kaa soo dhigi kartaa halkii aad doonto ayaad dhigi kartaa markaas videogaas intaas ayaa ugu muhiimsan inaad ka ogaato waa kan interfacekiisa bas video weyn ma aynu bahalin waa kan halkan inoo soo galo markaas asxaabisaas ayaa waa barnaamijkaas waa kaas insha Allah wixii ka dambeeya casharada kale soo qaadan doona sida loo edit gareeyo iyo sida laga video la isugu keeno iyo sida maxay ahaytoy video wax looga bedelo sida codka looga bedelo sida in cod kale loo saaro iyo waxyaabo kale fara badan insha Allah kusoo qaadan doona marka intaan casharka kusoo koobana waxay ka tagay ilaawin inaad channelka subscribe siisaan. Wassalaamu calaykum warahmatullaahi